رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إيانا وإياكم من الفتن والضلالات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، waxaanu kusoo guda jirnay oo hore aan uga soo hadalnay ramadaanta iyo howlaheeda, waajibkii ay lahayd iyo Allah subxaanahu wa tacaala ummadda siduu waajib ugaga dhigay ayaynu ka soo hadalnay. waxaynu ka soo hadalnay ummaddu in ilaahay subxaanahu wa tacaala laba jeerba fursad uu ku siiyey soonka. ciddii markaas fursaddaa la siiyeyna ay tahay inay ka faa'iidaysato. waxaa kaloo aynu ka soo hadalnay soonka inay culimmadii horena ay iskugu bishaarayn jireen, nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ugu bishaarayn jiray. waxaan rabnaa markaa sababaha kale ee min fadaa'il ramadaan, fadliyada ay ramadaantu leedahay, ama sababaha ee fadligeeda aynu uga warami karno, inagoo kolba aynu laba xadiis ka soo qaadan doonno insha allah biidni illaahi tacaala. fadliga ramadaanta waxaa ka mid ah xadiiska uu ka warramaya markaa oo maxay tahay, waa sababta makfirada dembiyada. waa culammada ay ku tilmaamaan sababu lmakfirati lidunuub, waa sababo ay sababtay ama ay keensanayso in dembiyadaada lagu dhaafo. nebi maxamed wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, isagoo arrintaas ka hadlaya: man saama ramadaanta ciddii soonta iimaanan iyada oo yaqiinsan, waxtisaaban weliba ku dalbanaysa ajri xasanaadna ku dalbanaysa, gafara lahu maa taqaddama min dembih, waxaa loo dhaafaya dembiyada kuwiisii hore uu galgalay, ee dembiyadii hore ee uu ku dhacay baa loo dhaafayaa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam. waxaa kale oo meesha aynu ka faa'iidaysanaynaa, qofkii sooma ee isagoo ilaahay dartii u soomay markiisii horeba, haddana u soomay iimaan ahaan, inuu alla dartii u soomay arrinkan, oo aanu uga jeedin hebel iyo heblaaye ha ku yidhahdaan hebel waa soomaa, ama hebel waa boqol soon, ama hebel intaasuu ka soomay. inaan lagu dhihine aad u soontay alla dartii subxaanahu wa tacaala, iyo naftaada inaad tarbiyadayso adabuyaa markaa aad edbiso ood ku edbiso sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo wixii waajib ilaahay waa dhigay. iimaan ahaantaana weliba ma ahee, waxay tahay markaa weliba in aad magaranaysaay weliba ay noqoto inaad wax ixtisaaban adigoo ku dalbanaya
الله سبحانه وتعالى أبال وقدر بنايا ذنب دافنا إله وقدر بنايا سبحانه وتعالى سأل أجري قد مركا أنت على تماده ورسولك بشارين عليه الصلاة والسلام غفر الله ما تقدم من ذنبه إن لغودا في دونه ذنبه وغريه لغودا في دونه إن شاء الله بإذن الله تعالى مركا وحينوها هبون وإنو خير بدن إنaynu raacno talooyinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo aynu qof walowba aynu ka dhigno soonkeenna inaynu ka saarno wax la yidhaahdo calaamaat almunaafiqiin alriyaa wax la yidhaahdo istus wax la yidhaahdo inaynu ka saarno waxaa kaloo oo soonka sababtiisa iyo sifaadkiisa ka mid ah waxaa weeye oo meesha ay tahay وإنه كفايديسنا بالحديث قال إلى رجيس رسول عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام كل عين سوى كورني حديث القدسي الله سبحانه وتعالى أيها حليه كل عمل الله إلهي بهالله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم عملك ابن آدم عمل هذا أو سميان ابن آدم في يجا إسكاله وبالمرنتوده يعني ملائكة أيا وقرته ملائكة أيا مسؤول ونقطة ملائكة أيا الله حل ساري لكن صومك الله سبحانه وتعالى وسجارة وحل ساري وحتى عماشه دي يفلدي دي أجرات كذي إلهي سبحانه وتعالى وحقوق فرحين يا مالته يوم القيامة قفكو صائم كها ولي باب الريان باب ليرادو باب الريان ليرادو أيوة ولي باسين كجري دونا وأحباب الصوم وضدك صوم الباب كجرانه أنت أنا الباب كجرينا فرحدي يسوي لك كل مدونه وكير سوق حديث كوران صور لها قفك بلو عامي قال وجه ربو فرحة مركا وأفريه هي مركا إلهي سبحانه وتعالى كعب على المرينيو وأنا يناي من دونا مركا لبعض هي مرسى حاد مركا نسوي حديث كان الرسول كورني الله سبحانه وتعالى حديث قدسي كان أيا وحوليه كل عمل ابن آدم عمل كستو ابن آدم وسميه له سجى يا سكله ومارتي أبان مرنتي ذي يعرف كود سكور بدونه إلا صوم كمويانه فإنه محاير لي صوم كاسانو يسوقنا ذي أنا قدرت أيو أصومي عمل كستو هذا قوم كور بيله درسوا سوق بني أيو هذا الصوم كان إلهي سجارة اسمه قسم مجاعبي فإنه لي وأنا أجزو به أيو الله سبحانه وتعالى محاير الصوم كان أنا جاي كأبال مرينايا وكريات بالله لي سبحانه وتعالى الحمام هداد كجرته يا هداد مارتي هذه بران تاغنتahay يا هداد cilad aad marayso hadaad waxa walba cid si walba aad marka ugu dhex jirto soomkaaga iyo salaadaada marxaati baa laga yaabaa aad tukanayso laakiin soomkaaga jawaa'iftaada gudaha ayay ka soo baxaysaa ama ay ku sugan tahay ilaahay mooyaane bil aadmi ogaan kara dhuuntaada inay wax mareenna habeeraatay ma jirto biyaha noqdo raashin ha noqoto waxa rabtaa noqoto yaa ka warqaatiya yaa og Allah subhanahu wa ta'ala waa cibaadada qaybka ah ee marnaba aan cid kale ogaan karin Allah mooyaane subhanahu wa ta'ala sida la ajligeed ayaa markaa lagu leeyahay ilaahay ba subhanahu wa ta'ala gooni iskaga dhigay bishaasuna waa bisha waa Allah tilmaamay subhanahu wa ta'ala ee soonka waajibka ah وبشر على الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة أي الله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بالله سبحانه وتعالى وبشاس ويان بشو الله سبحانه وتعالى وقولي سيسكا دغاي إن أمدا أي وسو كعبان مرينيو وقال الله سبحانه وتعالى وبشاس شهر كاس أي سو دغيان ملائكته وشهر كاس غدهدا أي كدخ جيران ليلة القدر وانت صد وبشي اي سو دغين ديمو اي سو دغين ويان
fadligaasay leedahay marka kuwii Allah subxaanahu wa tacaala ay naga dhigo kuwaana qaata ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis cibaadada u guta istus iyo hallay maqlo iyo hallay arko aanay naga noqonin. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa acmaasheenna oo dhan inuu ikhlaas iyo mutaabaco ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu khatimo, inuu quluubteena iyo qalbigeenna ikhlaas iyo mutaabaco ilaahay inooga buuxiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala. waxaan ilaahay aan ka magangelaynaa inuu ilaahay calaamaat almunaafiqiin inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala quluubteena geliyo. alriyaa ha lagaa sheego oo ummaddaa isku tustus inay tahay. haddii arrinkaas ay naga noqdaanna waxaynu wada ogsoonaanaa ama aynu wada garanaynaa inay noqonayso Allah subxaanahu wa tacaala hortiisa marka la istaagaad xisaabta u taagan tahay in lagu odhan doono maxaad ahayd? ilaahu adiga dartaa baan soo soomi jiray, adiga dartaa baan sidaan u ahaa. soomkiina kugu markhaati furi doonaa inaad been ka sheegtay, jidhkaagiina kugu markhaati furi doonaa. markaasuu haddana ilaahay ku odhan doonaa kadaab baad tahay ama kadaabad baad tahay oo been baad sheegtay ama been baad iga sheegto, aniga darteed maad soo soomin. waxaad u soontay in lagu yidhaahdo hebel waa soomaa, hebel waa sidaan, hebel waa keer, hebel waa caynkan. intiina adduunka korkiisaa lagu soo yidhi ifkanna waxba kuma lihid lagu yidhahdo walciyaadu billaah. ilaah baan ka maangallay. marka aynu iska ilaalina calaamadaha munaafiqiinta. acmaasheennana waa inoo baas bay inooga dhigtaa. waatay soomaalidu tiraahdo beentaada hore runtaada dambe baas u noqotaa. marka aakhiro yaani baas u noqonin acmaal ay niyaddeena aan ka sugnayn inaynu baritoole laayin jidhkeenu nagu markhaati furo. waa inaynu noqonnaa ifka korkiisa intaynu ku noolnahay acmaashaasi qaar inaga markhaati fura oo qalbigeena ka markhaati fura oo jawaarixdeena ka markhaati fura inay noqdaan. ilaahayna haynagu ilhaamiyo, haynagu toosiyo wadadii asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadiiba ay mareen. intuu ilaahay raali ka noqdayna ilaahay inaga wada dhiga dhammaanteen. dembigeena iyo dembiga waalidkeena allaha dhaafo. wax kastoon hagaajinayna ilaahay iyo rasuulkiisa ka sugnaatay. wax kastoon kharibnayna nafteena iyo shaytaan bay ka sugnaatay. wixii aan hagaajinayna miisaanka xasanaadka allah inoo saaro. intii aanu khaladnay ama aynu gafnayna Allah subxaanahu wa tacaala haynoogu bedelo ajir iyo xasanaad. dembigeedana allah inaga dhaafo. wabillahi towfiiq. subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika tabaarak ismu rabbana watacaala jadduk walaa ilaaha illaa gayruk. subxaana allah, allahu akbar, walaa xawla walaa quwwata illaa billah. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.